Maalin maalimaha ka mid ah, Juxa wuxuu ahaa mid keligii fadhiya gurigiisa. Xaaskii Juxana waxay aaday tuulo u dhow oo walaasheed degganayd si ay u soo booqato. Juxa xaaskiisii waxay u sheegtay inay caawa la soo joogayso walaasheed, berrina ay soo noqon doonto hadduu Alle idmo. Juxana furaashkiisii wuxuu tegay goor hore oo fiid ah, maadaama uu keligii guriga ku ahaa. Faynuusyadii wuu damiyey, waanu iska seexday. Markii uu Juxa wax yar jiifay oonu xoogna u gamin, uuna weli soo jeedo, tuug ayaa arkay guriga Juxa inaanu wax iftiina lahayn, goor horena la damiyey faynuusyadii. Waxaanu u maleeyay guriga in laga maqan yahay, waayo wuxuu arkay aroornimadii gabadhii Juxa oo guriga ka baxaysa iyadoo shandadii dharkana wadata. Sidaa awgeedna wuxuu isleeyahay gurigu waa cidla oo cidima joogto. Gudaha ayaanu u galay, isagoo u malaynayo inuu ka heli doono wax uu ka soo xado oo lacag ama dahab ah. Gurigii aad yar ayuu soo furay waanu soo galay, laakiin Juxa muu ahayn mid hurda ee markuu sanqadhii maqlay, wuxuu ku gabaday isagoo dhex galay sanduuq dhex yaalay qolkii uu jiifay oo madhnaa. Sanduuquna wuxuu ahaa mid leeg Juxa oo ku dhuuman karo, halka uu tuuggiina gurigii marba dhinac baadhayo, waayo tuuggu wuxuu raadinayaa wax uu xado oo uu qaato. Tuuggii siduu u raadinayay waxba wuu waayey uu xado oo ku habboon in la qaadan karo. Wuxuu soo wareegaba tuuggii sanduuqii ayuu arkay, waxaana u maleeyay halkan inuu ka heli doono dahab fara badan ama lacag fara badan ama wax u qalma inuu xado. Markii uu tuuggii sanduuqii furayna wuxuu kala kulmay wax uu ka naxo. Juxa ayaa kaga soo baxay sanduuqii oonu ka filanaynin. Isagoo naxsan wuxuu ku yidhi, Juxa, maxaad meesha ka qabanaysaa? Juxana wuxuu ku yidhi, iga raali noqo tuuggii ahaw, waan ogahay inaad guriga waxaad xadda ka soo weyday, sidaa awgeed waan kaa xishooday, sanduuqadna waan isku qariyey. Tuuggiina intuu la yaabay hadalkii Juxa ayuu ka cararay gurigii oo ka tegay. Juxana wuu farxay, waxaana ogaaday inuu ka badbaaday waxyeeladii tuugga. Sheekadii dhex martay Juxa iyo tuuggana halkaas ayay inoogu dhammaatay carruurey.